waa midowga dhalinyarada gobolka Sool gurmadka abaaraha midowga dhalinyaradu sida aad socialka ka arkiseen meediyaha waxay isu taageen gurmadka abaaraha iyo badbaadinta waxa xaalad adag ay ka taagan tahay deegaanka Buuhoodle oo cudurka shuban biyoodka ahi oo ka dilaacay iyo Goljono iyo magaalooyin kale oo fara badan arrinkaas markii aan ka danqanay midowgu waxa uu sameeyay ololo ballaaran oo lagu aroorinayo dhaqaale si dadka loo gaarsiiyo daawo iyo biyo midowga dhalinyarada gobolka Sool waxay horay u bixiyeen deegaano gaaraya 10 ay gaarsiiyeen raashin isugu jira dhar iyo saliid iyo timir iyo cuntada noocyadeeda kala duwan maanta waxa ay qaadeen ololo ballaaran oo lagu aroorinayo lacag iyo maaragtay si looga qayb qaadan lahaa xaaladda Buuhoodle waxaanu caawa markaas rabnaa inaan la wadaagno dadkana daawan doona iyo dadkii deeqda bixiyay ilaahay intii wax bixisay ha ka abaalmariyo inta jecelna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha siiyo waxa ay bixiyaan waxaanu hadda diyaarinay daawo gaaraysa 62 kartoon oo daawo ah oo aan ugu talagalnay inaanu hadii ilaahay idmo ka qayb qaadano gurmadkaas caafimaad waxaan sidoo kale diyaarinay gaari booyad ah oo biyo ah oo iyana aan ugu talagalnay inaanu la gaarno dadka marka shacabka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jecel inay ilaahay dartii ula baxaan waxaan fariin dheer ugu diraynaa in ay ka qayb qaataan gurmadkaas ay sameynayaan midowga dhalinyarada gobolka Sool muddo hadda xaaladdu 2 bilood ayuu midowgu waday xaaladan uu ka jawaabiyay deegaanada uu wax gaarsiiyay waxa kamid ah Saxdheer Canjiid Xalxaliye Waraabo ku hafay Caday iyo deegaanka loo yaqaano Kalax intaas oo dhan waxaanu gaarsiinay raashin iyo dadkii ku dhibana marka waxaanu caaw hadii ilaahay idmo dad badan ayaa waxay naga codsanayaan in aanu maaragtay anagoo kaalmada ama gurmadka u fidin doona dadka walaalaha ee masaakiinta ee ku tabaaleysan gobolka Cayn ee caasimadda Buuhoodle waxaanu bilownay si in leeyin sheegay in gurmadka aan gudida dhalinyarada gobolka Sool in ay sameeysan qaaraan ururin fara badan oo ballaaran oo ay ka ururinayso dhammaan daafaha adduunka dalka iyo dibadda email ka sabci kasta ku ogyihiin ayagoo ka danqaday dadka walaalahooda ee ku tabaaleysan kuna xanuunsanaya caasimadda gobolka Cayn waxiye maanta markii laga soo gudbo waxyaalihii hore raashinkii aan qiimin jirnay email-aan tagi jirnay maanta waxaanu barta internetka ama Facebook ama WhatsApp ka noqota ka bilownay olole aan ku ururino qaaraan waxaanu marka noo soo hoyatay lacag fara badan oo aan ugu talagalnay lacagtaas in aanu gaarsiino sida ay noo soo gashay dadka noogu soo wakiisheen waxaan ka sheegi doonaa lacagtu meelaha naga soo gashay iyo sida ay noo soo gashay waxaan ku qabanay marka koobaad waxa mahad leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahad celinayaa jaamacadda Nugaal maamulkeeda iyo macallimiinteeda iyo ardayda cid kasta oo socota waxay soo gaarsiiyeen lacag ah $1,600 oo ay nagu yiraahdeen waxaad nooga wakiiltiin inaad kaga qayb qaataan dadka walaalaha masaakiinta dawada ugu iibsan lacagta waan ka ajiibnay dawadina waa ku iibinay waana noo rarantay dadka kale ee ku nool daafaha adduunka dalka iyo dibadda waxa naga soo gaadhay oo ay barta internetka markii naga arkay nagu soo gudbiyeen lacag gaaraysa $1,000 oo taasuna ay tahay dollarka Mareykanka oo soo gaadhay dhammaanba cid kasta oo maqlayso daafaha adduunka waxaan u sheegnaa iyo kuwa lacagta noo soo dhiibtay ee nagu soo amaanaystay nagu soo aaminay waxaan u sheegnaa in hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaado lacagta sidii loogu talagalay ee idinkuna aad soo bixiseen in aan u gaarsiin doono dadka aad nagu dhibtaan geeska marin doono sida walaalkay sheegay waa 69 kartoon weeyaan dawadan caawarnay 2 gaari oo noogu raran tahay waxaanu diyaarnay team caafimaad oo professional oo health background ama medical background oo aan ugu talagalnay in daawada laftirkan wadana ay ku shaqeeyaan oo ay gacantayga ula tagaan oo aan soo noqon doono markaan meesha geeyno waa teamka hore uga soo shaqeeyay khayr Allah siiyo deegaanka Goljono markii aafadu ka dhacday oo guulo fara badan ka soo gaaray insha Allah
عاون halkan diyaar ku ah oo qayb ka mid ah inay joogaan iminka oo ugu talagalnay iyaga inay ka qayb qaataan gurmadka ka dhici doona xagga gacanta ee Buuhoodle ee ka taagan iminka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta meel kasta joogaan fadlan ka qayb qaata gurmadka aad ugu kaalmoonsan walaalihiin muslimiinta ee ku tabaalaysan maanta idin baahayin haday caafimaadaan idin baahan iyaga qabsanay iyaga shaqaysanaya bariiskooda cunay maanta laakiin idin baahayin fadlan ka qayb qaata inaad wax ku biirisan ilaahay baan ku korinaya waxaan u ducaynayaa dhamaanba عدي العقد المسؤول جالسي أو ورثة جامعة النيالي ضد المسلمين تهدافها دون كنول وحنليه إلهي سبحانه وتعالى ماشي كسر صارتين خير الله يدينكم بدلو وأنا ما سنتين دمانتين